qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka madaxda deegaanka dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Baraagciise ee koonfurta gobolka Mudug oo maanta la hadlay saxaafadda ayaa codsi u jeedisay shirkadda isgaarsiinta ee Samtel. Odayaashan ayaa sheegay in muddo badan ay ka jirtay isgaarsiin la'aan magaalada Baraagciise ee koonfurta gobolka Mudug. waxay kaloo ay sheegeen in shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom ay muddo ku dhow 10 sano ka duraamanayeen in ay soo gaarsiiso adeeg ay u haysa bulshada, hase yeeshee waxay sheegeen in aanay wax tixgelin ka helin shirkaddaasi. bulshada qaybaheeda kala duwan oo si wada jira maanta u hadasha ayaa codsi u jeediyay shirkadda isgaarsiinta ee Samtel, waxayna sheegeen in muddo badan baahi u qabeen adeeg ay u hayaan bulshada. waa kuwan qaar ka mid ah odayaashaas oo ka hadlaya arrinkaasi. waxaa ka jira dhibaato isgaarsiin la'aaneed baa ka jirta, marka waxaan nahay codsiganagu wuxuu ku jeedaa shirkadda Samtel. meeshaan dhibaato badan ayaa dadkan ka haysatay. waxaa u jirtaa 40 kiiloomitir oo bacadweynaha iyo 40 qaydaraah baan u dhaxaynaa, anteenana male intaa u dhaxaysa. waxaan ka codsanaynaa shirkadda Samtel inay ama sidii Hormuud noo galaan ay noo gashay oo noo xusulayeen oo noo riixriixeen oo noogu diideen ateenada, oo xataa bahalkii la oran jiray hadda waxyaabo aanan ka sheegayn meesha ay noogu sameeyeen oo kaleeto inay yeesho amba ay wax noo qabtaan. waxaan u baahannahay anteenan ka codsanaynaa shirkadda Samtel. Hormuud hadda annagu ma lihiin xilligan waxna siiya, waan ka soo daalnay. hadda ka hor aan waxaan codsi u gudbisanay Hormuud, codsiga yagiina waxba kama qaban. ujeedada ay naga lahaayeen waa garaweynay. maantana hadii la yiraahdo kaararkoodii awalan wax ku qabin dhulkaan iska dhignay. marka waxaan baaq u jeedinaynaa oo ka codsanaynaa Samtel inay 24 saac wax noo qabato. waxaan ahay gudoomiyihii magaalada, waxaan tagay Gaalkacyo, waxaan ugu tagay Hormuud. markii aan tagay waxaan yiri deegaankaas ayaan ka imid, meesha aan ka timid maxaa la yiraahdaa baa la yiri. waxaan yiri Baraagciise waa la yiraahdaa, Kalabayrna waa la yiraahdaa, Baraagciise waa la yiraahdaa. waxaa la yiri xamar aad. xamar markii aan tagana waxaa la xagaa ka timid, waxaan ka imid aan yiri meeshaas oo meeshaas Baraagta la yiraahdaa, Baraagciise waa taqaanay idinka Hormuud dhulka waa kala taqaanay, waa ku shaqaysataan. markii aan tagay la iima jawaabin labada meeloodba. waxaan ogaanay inay wax ficil la yiraahdo ay noogu diidahayaan. ficilkaas oo ah in ay deegaamada noo dhadhow oo dhan la siiyey. anagu magaalo ilaa 40 sano dhisneed ayaan nahay, waxaana la siiyey kuwa tuulooyin yaryar oo aan waxba ahayn.